waxaan rabaa marka hore dadka reer galmudug gudaha iyo dibadda meel ay joogaanba inaan u diro hambalyo iyo bogaadin oon ugu hambalyeeyo sanad guurada 14 Agost oon idhaahdo sanad guuro wacan hambalyo reer galmudug meel ay joogtaanba iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. caaway sanadkan bishan maalmahan waxay noo leeyihiin xusuus gaara. waa asaaskii galmudug. dad badan baa yidhaahdaa markii laga hadlayo dowlad goboleedyada galmudug waxay uga jirtaa meel aan meesha dabaaldega ahayn. annaga waxaan u sanad guurada iyo dabaaldegeenu yahay waa asaaskii galmudug. markii la isku daray markii la mideeyey markii waxaasoo dhan waa ka dambeeyeen laakiin asaaskii baan u dabaaldegaynaa. waxaan rabnaa halkaa inaan uga ducayno dadkii soo hogaamiyey ilaa waktigaas intii soo bedeshay intii dhibantana waxaan leenahay la naxariisto inta noolna waxaan leenahay waa mahadsantihiin. qofba madax buu soo qabtay meel buuna wax soo gaarsiiyey. waxaan rabaa sidoo kale inaan mahad celiyo dhammaan dadka munaasabadan iyo xafladan quruxda badan iyo sanad guuradan qabanqabadeeda iyo hawsheeda soo qabaqaabiyey aan idhahdo waa mahadsantihiin. mudanayaal iyo marwey madaxda sharafta leh dhammaan shacabweynaha reer galmudug meel aad joogtaanba runtii wixii dambaan waa soo gaarnay in badanna waa la sheegay caaway muhiimadii iyo wixii waxqabadkii laakiin laga maarmi maayo sida la xusay inaan wax un isdul taagno. sida la wada xusay reer galmudug xukuumaddan intii ay joogtay wax badan baa noo qabsoomay ilaahay fadligiis. xukuumadda uma qabsoomin keliya waxay u qabsoomeen xukuumadda iyo shacab weynaha reer galmudug oo gacmaas haysta ayaa shaqeeyey dhaliyey ilaahay ku guuleeyey guulaha badan oo galmudug ay si deg deg u gaartay. marka waxaan leenahay dadka reer galmudug baraaruga iyo aragtida iyo siday ugu far adeygeen dowladnimada iyo socodka iyo horumarka iyo siday uga gudbeen in lagu habsaamiyo ama lagu waqti looga dhumiyo wax aan meel tegaya amaan macno lahayn. aada iyo aad baan ku bogaadinaya reer galmudug meelaad joogtaanba. runtii xukuumaddan intii ay jirtay waxaa u qabsoomay horumaro ballaaran oo saameeyey nolosha bulshada reer galmudug. wax badanna ka bedelay. haddaan caawa qodobada idiin dul istaago mawda halkan kuma sharaxi karo. baahiyo hortabin leh ama muhiimad gaara leh ayaa galmudug xukuumaddani degsatay iyadoo bulshadeeda la kaashanaysa, iyadoo la kaashanaysa saaxiibada caalamka, iyadoo la kaashanaysa cid kasta oo gacan ka heli karto. baahiyihii la dejiyey ama la qorsheeyey ilaahay fadligiisa. waxaad ogtihiin baahi ma dhammaato laakiin way kala horeysaa. markaan tusaale yar aan bilowno caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha waxyaabahii noogu horreeyey oo servicekii bulshadana baahi badan u qabtay ayay ahaayeen. waxaad ogtihiin kororka korokaca tay ahaan iyo tiri ahaanba ku timid arrimahaas baahiyahaas. waxaan noqonay dowlad goboleedka ugu kororka badan dhinaca waxbarashada. tirada maaha waa tira waan laga badan karaa laakiin kororka aan samaynay sida horeba loo sheegay in badan ayaa waxaan nahay dowlad goboleedkii ugu kororka badnaa ee xawli aysan inta kale samayn kororkooda ku yimid dhinaca waxbarashada. caaway tuulo ama meel u qalanta ama muuqata ama oo ayna ka jirin waxbarasho ma jirto galmudug ilaahay fadligiisa.
sidoo kale caafimaadka meel aynan caaway MCH ama xarumo waaweyn oo caafimaad aysan ka socon magaalooyinka waaweyn meelaha kale oo fogfogna MCH iyo waxa la gaarsiiyo waxaana runtii caawa ficneed sida uu sheegay wasiir xasan macalin inay sharaxaan wasaaradaha laakiin de anagu si guud aan dulmaraya iyadana caawa meel la gaarsiin ma jirto tana waaweyn oo reval hospital ah oo ugu horeeya kan caasimadda ayaa dhismayaashoodii iyo dib u dhiskoodii iyo hawshoodii socotaa hadda la shaqeeya oo caafimaadka xaggiisa biyaha wax badan baa laga qabta baahi biyo ma dhamaato waxaa la gaarsiiyey intaas oo beelood ama ceelasha ama daamimka biyaha qabta ayaa la gaarsiiyey oo runtii aan dhihi karna waxaan nahay meelaha ugu badan ee ka faa'idaystay ilaahay fadligiisa waxaa jir sidoo kale waxaan isu taagnay aan runtii siinay iyadana muhiimad gaara siinay kaabayaasha dhaqaalaha oo runtii ahaa baahi weyn oo galmudug ay qabto waxaa la yidhahdaa xitaa dawladdii dhexe meelaha waxay ka mid tahay aan wax badani ka qabsoomin marka laga hadlayo kaabayaasha dhaqaalaha oo aynan wax badan inkastoo dawladdii wixii ay qabatay meelaha ay ka faa'idaystay ma noqon galmudug kama mid noqon marka waxay ahayd baahida ka jirtay runtii baahi weyn bay ahayd taas ayaan xoogga saarnay inaan tallaabooyin waaweyn hore u qaadno ilaahay fadligiis waxaan ku dhaqaaqnay marka hore wadooyinka kuwa magaalooyinka gudahooda iyo kuwa isku xira gobolada iyo degmooyinka galmudug waxaan rabaa caawa halkan in yar idiin dul istaago kuwa wadooyinka gudaha magaalooyinka ugu horeysa caasimadda waxaan sida hadda halkaa laga xusaad aragteen meel walba oo la jeexayo oo wadooyinkii ay dardar ku socdaan caasimadda magaalooyinka kale waxbaa laga qabtay laakiin caasimadda hadda waa caasimaddii waxa weeyaan ilaa iyo 25 kilomitr oo magaalada gudaheeda ayaa la dhisaya oo wata biyo mareenkii ama siwijkii biyaha ka saarayay magaalada oo intaa oo dhinac magaalada u maraya kuwa isku xiraya wadooyinka isku xiraya gobolada iyo degmooyinka alxamdulilah dagaal badan oo la sameeyey iyo galaangal la sameeyey ilaahay wuxuu nagu guuleeyey hadda saad ogtihiin waxaa bishan agost dabcan dabayaaqadeeda ama dhammaadkeeda bilaaban doona jidkii ka bilaabanaya caasimadda oo aan filayo 60 kilomitr ayuu kaasi ahaa kii markii african development dhamaaday oo processkii uu soo dhamaado in la bilaabo ay tahay muddo aan fogeyn 2 bil 3 bil ka hor ama xilligaas ah waxaa noo soo baxday 285 kilomitr oo laamiya 140 kilomitr waxaan ka bilownay halka uu ku dhamaaday 60 kilomitr waxaana u tegayaan magaalada gaalkacyo 145 kilomitr waxaan kasoo bilownay xuduudda cabudwa dhinaca ku beegan waxaanan u wadnaa meesha uu ku dhaco dhinaca hobyo oo ah dekeda mustaqbalka dhow hirgelaysa insha allah waxaa sidoo kale dowladda galmudug oo kaashanaysa shacabkeeda sharafta badan haldoorka reer galmudug aan anagu bilownay oo hadda socda dhismaha caasimadda iyo degmada gurceel u dhexeeya oo ku dhawaad 70 kilomitr ah haddana qalabkii iyo hawshii lagu qaban lahaa la dhamaystiray intii dowladdu qabatay maana intii kalena ganacsato iyo mas-uuliyiin sharaf leh ayaa qaatay kaalintoodii haddana u taagan guddiyadii iyo hawshii loo saarayna si dardar ay ku socdaan iyadana guul aan reer galmudug ahaan anagu u dhisanayno si gaara weeyo anaan saaxiibada iyo deeqbixiyaasha midna ka kaashanayn taasna waxay noo tahay guul kale oo aan runtii anagu reer galmudug ahaan isku xilqaanay waa dhinaca kaabaasha dhaqaalaha weli aan ku jirnaa si aad la wada socotaan waxaan isu taagnay iyadana oo aan hawl iyo cambaign dadaal u galnay cidna inaynaan ka sugin dekedii galmudug alxamdulilah waxaan la kaashanay uga abaabulnay isu keennay ganacsatada reer galmudug inay maal gashtaan kadib markay ku qanceen galmudug halka ay joogto xasiloonida amni xasiloonida siyaasadeed iyo inay u qabanto
inay ganacsatadeeduna maal gashtaan kuwa shisheeyana ay maal gashtaan way go-aansadeen caaway qalabkii dekeda hobyo dhismaheeda lagu bilaabayay wax ka maqan oo galmudug gudaheeda ka maqan ma filay hadda ma laga yaaba maalmaha inay soo gaaraan hadday jiraanna laakiin dalka dabadiisa wax ku maqan ma jiraan waa lasoo dhamaystira iyadana halkaasay haddii ilaa yidhaahdo dhowaan dekedii ka bilaabanaysa oo ay ku soconaysa hawsheedii sidoo kale waxaan aad aragteen oo la dhisay muddadaas xukuumadda iyo shacabka reer galmudug ay dadaal ka bixiyeen hay-adihii wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda qayboodii kala duwanaa caawa waxaan ku faraxsannahay mid la dhisay iyo mid socota inay yihiin dhammaantood ilaahay fadligiisa waad aragteen oon dhamaystirnay galmudug waxay intaas ugu suurto gashay muuqaalka dadaalka midnimada wadajirka ay dhexdoodana isku qanceen saaxiibada caalamka iyo deeqbixiyaashuna ay ku qanceen sida la sheegay hal mashruuc ama qorshe loogu talagalay galmudug oo aanan cid walba horteed isticmaalin ma dhicin weli annaga dhammaynaa isticmaalna haddana kuwa kalaan dalbanaa waan ku faraxsanahay meelaha qaarkood in kastoonaan la jeclayn anagu cidna aynan dibdhac la jeclayn si horeba u sheegnay oon jecelnahay state kasta iyo meel kastoo soomaaliya ka mid a wixii ay hesheen ka faaidaysato haddana walaalihii ka faaidaysan waaya annagaa ka faa'idaysana taasna waa laakiin iyaga ugama xumine dee annagaa dadaalnay oon maaragtay baahideenada iyo waxaan ognahay hawshan hortaalla taa markaan intaas iyadana idhaahdo waxaan rabaa arrimaha la dagaalanka runtii waxaan sidoo kale aan xusin oo ayadana mudan in la xuso xoolaha iyo beeraha oo ah runtii waxyaabaha ay reer galmudug ama soomaaliya o dhan ba aan idhaahdo ay hodanka ku yihiin aada iyo aad baa shaqooyinkoodii hawshooda dardar lagu wadaa hadday tahay xanaanadii iyo taxadarkii de maaragtay daweydii iyo caafimaadkii xoolaha iyo meelihii loogu sameynayay iyo hadday tahay beerahii oo annaga markaan reer galmudug nahay maxay tahay reer galmudug beera ka hadlaya dad badan is weydiiya oo dadku waxay u haystaan galmudug inaanan beero iyo dad badan baa u haysta adeer galmudug waxaan ka baxayn waa la waayay marka qoladii beeraha sida gaarkaa isu sii jirtayo beerihiina waa aragnay inay galmudug meel waxaan kasoo baxayna jirin marka meelihii kaleo beeraha aadka loogu yaqaanayna nicmadii laga heli jiray allaha noo barakeeyo midaana waa helnay taayadiina waa ku darsanay ogaada dhul beereed wax walba ka soo baxaan inaan haysano taasna runtii daal baa lagu bixiyaa aada iyo aad khayraadka kale ee dalka haddee reer galmudug waa saxmad badan yihiine annaga khayraadkii dalka shidaalkii macdantii uraniumkii dhammaan annaga waxaan soomaaliya dhanna wax wey dhul runtii aad iyo aad khayraadkaasi ugu badan yahay weye haddaan nahay reer galmudugna iyaan fahnala kaga qaadanaya meelaha ugu badan baan soo haysanaa ay tahay sahamadii la sameeyana waqtin in lagu guulaystay ayaduna dhowaan bay soo bixi doontaa haddii la yiraahdo oo aan isleenahay soomaalina waa ka faaidaysaa reer galmudugna waa ka faaidaya taasna insha allah waxaana nasiib ah oon ku faraxsannahay inaan noqonay meelihii ugu horeeyey ee baaris laga sameeyey mira dhashay weliba marka taasna waxay noo tahay soomaalina guul bay u tahay reer galmudugna guul bay u tahay intaan markaan nagu imaado waxaad og tihiin argagixisada dalkan dhibaatada u geysatay soomaali wax badan dadkaas xalaalaystay dhiigga iyo maalka iyo sharafka dadka muslimiinta soomaaliyeed de dagaalkooda waa socdaa maalin laga istaagay ma jirto haddana dardar in la geliyo waa lagu jiraa hawsheeda haddaan nahay reer galmudugna alxamdulilah rabbi alcaalamiin dad reer galmudug ah inkastoo dadka soomaaliyeed isku wada mid yihiin oo kii dhiban annaga aan dhibkiisa ka naxayno dadka reer galmudug
deegaanada hadda caawa la tilmaamaysan wada ognahay ayaa dadkeenagii ku dhiban yihiin ay ku haystaan haddii ay yeeshee inta xor tahay caawa intay leeg tahay iyo baaxadda ay leedahay waqti iyadana soomaali iyo galmudugba annagoo soomaali uga mid ahan si gaarana isu xilqaamaynaa meelaha qaarkood waxaan aragnaayo xoogaa argagixiso yar hadday inta aaday aanan ay noosoo aan niri war kuwaa soo bixiya dad baa yidhaahdaa uma iska bixiyaan koonfurta soomaaliya ama dhinacaan markii lasoo aado war soomaaliya waa isku mid argagixisana waa cadow in meeshii lagu hor joogo in laysugu tago oo lasu kaashadayna u baahan yihiine uma baahna dad mararka qaarkood siyaasiyiini inay ka dhigtaan fan ama ay wax ay sheegaan ka dhigtaan argagixisada maasaas iska yeelaan argagixisa waa cadow caalamiya dalkaana kusoo duulay marka soomaali meel ay joogto waxaan rabnaa inaan isku kaashano taasna waxaan leenahay reer galmudug haddaan nahay dadka soomaali kuwa ugu dhibka yar baan ka mid nahay kuwa ugu dhib badan kama mid nihiin argagixisada xaggeeda marka laga hadlaya laakiin dhib soomaaliyeed meelu ka jirana inuu nahaysta kama naqaan taasna insha allah waxaan ku dardaarmaynaa argagixisada inaan isku kaashano sidii horeba soomaaliya meela joogtoba xataa kuwa jooga ka tirsan ama ka mid ah dowladaha jaarka ah waxaan leenaha hala iskaashado intaas kadib waxaan rabaa inaan idhaahdo arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda arrimaha doorashooyinka siyaasadda anagu cabdi axmed caawa xoogaa yar soo leexsho wuxuu yidhi yaan doorasho ladinka weyn waa wadnaa seena lakaga weynaya anagu meelaha kale oo xoogaa hawluhu ku adag yihiin baa midha gadaal loo fiirin doonaa haddaan nahay reer galmudug caasimadda kama socotee caaway 10 magaalo ayaa diiwaangelinta loo joogaa oo xafiisyadii iyo xarumihii laga furay diiwaangelinta waana wadaynaa inagu waxaan leenahay dadkayga reer galmudug maba mudna mana astaahilaan doorasho dambe oo jacbura inay galaan maxaa yeelay dadkayga xornimo iyo waxay haystaan nabad iyo fursad ay codkooda ku dhiibtaan inta yaroo argagixisada joogtana waa sheegnay iyadana soomaali anagoo iskaashanaynaan soomaalida dhanna ka horeynaa tanna insha allah waan kusii jeednaa marka dadka waxaana ugu horeeye anagu doorashaan gelaynaa waanu diyaarsana inagoo soconna ood og tihiin guddiyadii doorashooyinka inay noo samaysan yihiin oo dhisanay oo ku dhaqaaqnay oo weliba gacan iyo u helnay taageero ayaa soomaali in doorashada in la mideeyo aan qaadanay wax ka qaadanay taasaan u istaagnay inagu waa wax walba waa dhamaystirnay oo aan doorasho ku geli lahayn taasna waxaan leenahay daneeyaasha siyaasadda iyo dhammaan walaalaha soomaaliyeed wixii dowladnimo soomaaliya hore u wadaya aan ka wada shaqayno wax dib u celinaya ama meel aan lugaha isku dhagayno sheegaya yaynan ka shaqayn xel waa la helayaa ciddi ilaahay u qoro laakiin dalka inaan noqono dowlad sharaf leh karaamadii aan ku lahayn fagaarayaasha caalamkan aan la soo noqono aan isugu tagno haddii la yidhaahdo maalinba qofka jooga ama cidda joogta ama hoggaanka jooga lugaha lagu dhego ama ha laga daba shaqeeyo waxaa laga daba shaqeynayaa qof iyo xukuumad iyo koox midna maana waa soomaali in dib loo celiyo marka waxaan leenahay walaalaha soomaaliyeed meel ay joogaanba nooc ay yihiinba ee daneynaya siyaasadda dadka shacab weynaha soomaaliyeed dembi iyo eed midna ma lahane aan wixii la qabo laysu qabo yaynaan ku gudbin yaynaan ka dhigin anna soomaali baan khilaaf iyo qalalaaso u horseedaya yaynaan dhihin innaga haddaan nahay reer galmudug kama hore wax badanna waa sheegnay horena ugumaynaan qayb qaadan haddana kama qayb qaadanayno soomaali wax keenaya khilaaf wax dib u celinaya wax isqabsigeed iyo dhibkeeda sheegaya kama qayb qaadanayno hornooda ma qayb qaadan dowladnimada iyo inaan hore u soconnona dowlad goboleed maanta dowlad noqon kara ama caalamka
qolana dhibaysona sukaana dhibaateynaysa mooye qolo kale lama caamili karaa ma jiro marka hadday tahay wejigaagiiba dowladnimada soomaaliya uu yahay magacaagiina dowladnimada soomaaliya yahay war aan dowladnimada iyo qarannimadeena xoog u yeelno sharaf u yeelno haybad u yeelno midnimo u yeelno taas intaasaan iyadana ka idhaahdo guud ahaan waxaan leeyahay arrintaas markaan intaas uga gudbo reer galmudug aan rabaa inaan dardaaran yar u gudbiyo ugu dambeyn reer galmudug waxaan leeyahay walaalayaal meel aada joogtaanba dal iyo dabad aan midnimadeena wadajirkayaga wax wada qabsigayaga horu socodkayaga aan ku wada far adeegno ka wada shaqeyno waad ogtihiin anagaan dhahnaa reer galmudug soomaali marka la joogo waxaan laku tiriyaa dadka soomaali ugu haddaan dadka soomali ugu dhib badan hadee dadkayga ma rabayaan saas in reer galmudug ihahdee dadka ugu dadnimada badan marka mararka qaar dadnimada faraha badan lahaa waxay wax badan ka hadlaysa waxaan leeyahay kuwa ay ku jirto oo mararka qaar maslaxadeena iyo midnimadeena wadajirkanaga iyo horumarkanaga aan usan u muuqan annagoo wada jirna gacantaan ka qabano horey baan gacanta uga qaban jirnay haddana aan gacanta ka qabano aanan u aqli celino hadda baraarug fiican baa jiro oo waagii hore siyaasiyiinta reer galmudug waa iska dhagaxtuur badnaayeen marka hadda kuwii dhagaxtuurka badnaa waa xoogaa waa soo waayeeloobeene kuwa yararkaa cayaar baradka aan kuwaas xoogaa aan cayaarta aan u toosino kuwa siyaasadda hadda ku cusub oo cayaar baradka aan cayaarta u toosino hal meelna aan horay ugu soconno caaway inta aan sheegayno waxaa lagu gaaray midnimo wadajir amni waxa wada qabsi ayaa lagu gaaray hiigsiga aan leenahayna wuxuu yahay runtii sanadkan sida la sheegay sanadaa soo socda in galmudug halkaa kasii intaan caawa sheegnay haddii la qabto yacni wadooyin gaaraya ku dhawaad 500 oo kilomitr ayaa socda hawshooda socotaa dekadii ayaa socota waxaa socda khayraadkii dalka inuu soo baxo soo ma waxaa socotaa inaan intaas cadowgu ay ka joogaan galmudug iyo soomaaliba aan ka qayb qaadano taasna waxaan leeyahay reer galmudug iyo bidays naga yeelan kuwa beeras ka sheegi karaan caawa dhan waxbay sheegayaan waxbay sheegi karaan reer galmudug oo u baxeen sheegsheega iyo dhaliilaha faraha badan leh marka dhaliishaas iyagu hadda marar badan waxay sheegaan ma yaqaaniin been ba iska sheegaane been meelaha ka hadleen laakiin yaysan keenin wax galmudug kala qaybin iyo dhib u keenaya intaasaan ka wada foojignaana insha allah bulshada reer galmudug waxaan leeyahay sidoo kale amniga aan ka wada shaqeyno hay-adaha amnigana gacanaha la siiyo ma ahan amnigu inaan wax dhacayn ma ahan wixii dhaca sideedaba adduunka meel aan dembi ka dhicin ama aan dhibaato ka dhicin ma jirto wixii dhaca oo qalad ah waa inaan wada qabano meelna usoo wajeesano waa in ay is arkaan qofka qaladka gala ama dhibaatada geysta iyo sharcigu waa in is arkaan muhiimadda waa intaas sharciga iyo qofkaasi waa in is arkaan waxay yidhahdaan dadaa beelaha ku diriro war soomaali dagaalada ka dhex dhaca iyo dhibaatada ka dhex dhacda annaga hadda u nastahaanba alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa logya soomaali dhibaatadaas waa iska qabtaa waxaa galmudug meelaha ka dhacana wax soo quda 40 jirsaday 50 jirsaday dowladdii militariga ahayd oo waddankan ugu xoog iyo ciidan badneed ayaa waxaasi dalka ka dhacaya laakiin waxyaalaha aan rabno inaan sal guurino oon ka gudubno weye soomaalida kalena aan sidaas oo kale la jecelna in ka wada gudubto marka waxaan leenahay dhibaato gaar nama haysatee sharciga iyo amniga aan aad ula shaqeyno si dembi kasta oo dhacahay u hortago sharciga taasna aan kala shaqeynaan leenahay mar kale waxaan leenahay soomaali waxaan rajeyneynaa midnimo dowladnimo adag khilaaf la-aan iyo tanasul iyo inaan ilaashano haybadeena iyo sharafteena reer galmudug mar kale meel aad joogtaanba waxaan isugu bogaadinaynaa isugu hambalyeynaynaa sanad guuradan waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa kale horumar iyo midnimo
iyo wax wada qabsi allaha nagu gaarsiiyo